بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، رئيس دورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس جمهورية التونسية الشقيقة، رئيس دورة سابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. mudane madaxweyne cabdulmajiid tabuun madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga aan walaalaha nahay ee aljeeriya ahna guddoomiyaha meertada 11aad ee jaamacadda carabta mudane madaxweyne qays bin saciid madaxweynaha jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee tunisiya ahna guddoomiyaha meertadii 30aad ee jaamacadda carabta madaxda amiirada boqorrada iyo hogaamiyaasha kala duwan mudane axmed abulqayd xogayaha jaamacadda carabta marwooyin iyo mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، walaalayaal waxaa sharaf ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo shirkan. ugu horrayn waxaan idinla wadaagayaa salaan diiran oo idinkaga sido shacabkayga Soomaaliyeed oo ay sharaf ii tahay inaan mar kale hogaamiyo. shacabkaygu waxay u halgamayaan sidii ay xasilooni iyo horumar u gaari lahaayeen kadib sanado badan oo ay dagaal kula jireen kooxaha argagixisada ah ee ugu dhibaatada badan guud ahaan qaaradda Afrika. الإفريقية. كما يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجمهورية الجزائرية. sidoo kale waxaan bogaadinayaa mahadcelin u dirayaa jamhuuriyadda Aljeeriya, shacab, dawlad iyo madaxweyneba sida ay noo maamuuseen martiqaadka iyo soo dhaweynta diiran innaga oo la wadaagayna hambalyo ku aadan sanad guurada dalkooda. madaxweyne qays bin saciid oo guddoominayay meertadii 30aad ee golaha jaamacadda carabta waxaan ku bogaadinayaa go'aanadii wax ku oolka ahaa ee la qaatay muddadaas taasi oo kor u qaaday wax wada qabsiga heer carbeed iyo xoojinta iskaashiga. mudanayaal iyo marwooyin shirkan waxa uu imaanayaa xilli mandiqadda carbeed ay soo food saareen dhibaatooyin iyo caqabado kala duwan oo halis ku ah amniga, xasiloonida dalalkeenna iyo guud ahaan caalamka. caqabadaha ka dhashay cudurkii safmarka ahaa ee corona iyo saameynta xiisadda ka aloosan dalalka Ruushka iyo Ukraine dhammaantood waxay culeysiyeen dalalkeenna, gaar ahaanna waxa ay sababeen cunto yari. taasi waxa ay nagu qasbaysaa inaan dib u abaabulno iskaashiga iyo wax wada qabsiga heer carbeed, gaar ahaanna qorshayaasha ku aadan horumarka iyo xaqiijinta tallaabooyin dhab ah oo aan ku wajahayno dhibaatooyinka inagu xeeran. mudanayaal iyo marwooyin markii aan ka hadlo Soomaaliya waxaa sharaf ii ah in dib la iigu doortay markii labaad xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo markii aan talada la wareegay aan xoogga saaray dagaalka ka dhanka argagixisada oo aan dhowr jiha ka bilownay dhanka dhaqaalaha, fikirka iyo furimaha dagaalka, iyadoo aan sidoo kale la tacaalayno abaaro iyo cunto yari. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ku howlan tahay sidii ay uga gudbi lahayd caqabadaha iyo dhibaatooyinka amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka dhashay kooxaha argagixisada ah, abaaraha soo noqnoqday ee ka dhashay isbeddelka cimilada. kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab waxay caqabad weyn ku tahay horumarka iyo xasiloonida Soomaaliya muddadii dhowr iyo 10 sano ahayd ee la soo dhaafay, iyadoo oo maanta aynu ku guuleysanay inaynu wiiqno awooddooda dhaqaale, ciidan iyo fikirka kooxdan argagixisada ah. kooxda argagixisada ahi waxa ay ku suntan tahay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed iyo falalka arxandarrada ah oo ay ugu dambeysay qaraxyadii argagixisanimo ee toddobaadkan ay ka geysteen magaalada Muqdisho, taasi oo ay ku nafwaayeen in ka badan 100 muwaadin oo Soomaaliyeed, halka dhaawacuna kor u dhaafay 300 oo qof. khasaaraha dhaqaale ee soo gaaray dadkaygana malaayiin ayuu gaarayaa. inkastoo ay sii tabar yaraanayso argagixisadu laguna jebiyey furimaha dagaalka oo ciidamada Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah iyo saaxiibada caalamiga ahi guulo la taaban kara gaareen, haddana weli waxaan u baahannahay garab istaag iyo inaad gacan weyn ka geysataan dowlad dhiska Soomaaliya iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. deyn cafinta, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, maalgashiga kheyraadka dalkeenna sida xoolaha, beeraha iyo kalluunka, maadaama Soomaaliya ay leedahay kheyraad ku filan inay xal u noqdaan xaaladaha adag ee ka dhashay cunto yarida uu sababay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. mudanayaal iyo marwooyin madaxda kala duwan
qorshaha aan ku wajahayno kooxda argagixisada ahi waa mid 3 wajiile ah: dagaal milatari oo aan ku xoreynayno deegaanada ay joogaan, dagaal dhaqaale oo aan ku curyaaminayno ilaha dhaqaale ee maalgelinta argagixisada gudaha iyo dibadda, iyo dagaalka dhanka ah fikirka gurracan ee xagjirnimada, iyadoo aan daaha ka qaadayno been abuurka ka dhanka ah diinteenna suuban iyo ficilada qaldan ee aan meelna ka soo gelin diinta islaamka. dagaalkan ay ku jiraan dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada waxay u baahan tahay awood lagu xaqiijiyo hiigsiga aan uga gol leenahay, hiigsigaasi oo ah xaqiijinta Soomaaliya oo aan argagixiso joogin, xasilooni iyo amni ah, heshiis ah, dunidana heshiis la ah, doorkeeda firfircoon ee soo jireenka ahna ku leh heer carbeed, heer gobol iyo caalamkaba. mudanayaal iyo marwooyin madaxda kala duwan, dhanka dhaqaalaha waxaan samaynay dib u habeen ballaaran innaga oo jeexnay qorshayaal la jaan qaadaya hannaanka iyo halbeegyada caalamiga ah. sidoo kale waxaa meel fiican maraya qorshaha deyn cafinta, iyada oo ay caqabado jiraan maadaama deynta caalamiga ah ay caqabad ku tahay maalgashiga iyo abuuridda fursado shaqo. Soomaaliya maanta waxa ay baahi weyn u qabtaa taageero carbeed oo dhab ah oo ku wajahan deyn cafinta, sababta oo ah deynta qaybta ugu badan waxaa iska leh dowlado iyo maalgashadayaal carbeed oo aan ka rajaynayno inay nagala qayb qaataan cafinteeda, innaga oo hogaamiyaasha carbeed ka rajaynayna inay nagala qayb qaataan wadaxaajoodyada hay-adaha iyo bangiyada caalamiga ah ee deynta kula Soomaaliya. mudanayaal iyo marwooyin hogaamiyaal, Soomaaliya waxa ay ku tilmaaman tahay booska muhiimka ah ee ay dhacdo khayraadka iyo ilaha dhaqaale sida beeraha, kalluunka iyo macdanta, iyadoo aan awood u leenahay inaan xal u noqonno dhibaatooyinka cunto yarida ee taagan, balse ay taasi aasaas u tahay xal u helidda deynta iyo caqabadaha dhanka amniga ee ka jira dalkeenna. dhanka arrimaha bini'aadanimada, idinkama qarsoono xaaladda adag ee geeska Afrika oo Soomaaliya ay ka jirto tan ugu daran dhibaatada abaaraha, iyada oo muddaxilaadkii roobku uusan curan 5 xilli roobaad oo xiriir ah, taasi oo sababtay in xoolihii ay leedaan maadaama ceelashii gureen, webiyadiina qallaleen. haatan waxaa malaayiin ka mida shacabkaygu ay la nool yihiin cunto yari aad u daran, gaar ahaanna carruurta, innaga oo ka cabsi qabna in xaaladdu ay ka sii darto oo isu beddesho macluul qaar ka mida gobollada dalka. innaga oo sii wadna dadaalka ku aadan ka hortagga nabaadguurka, isbeddelka deegaanka iyo cimilada, waxaan markii ugu horreynay aasaasnay wasaarad ka shaqaysa arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada si aan xal ugu helno dhibaatooyinka soo laalaabtay ee abaaraha daran iyo fatahaadaha xooggan, kuwaasi oo ay sababeen kaabayaasha dhaqaale ee webiyada oo duugoobay. si aan dhammaan arrimahan xal ugu helno, waxaan diyaarinay qorshayaal miro dhal ah oo aan rajaynayno inay nagu garab siiyaan dowladaha carbeed ee aan walaalaha nahay. dhanka siyaasadda, waxaa xaqiiqo ah dadka Soomaaliyeed waa ay ka gudbeen isku dhacyadii milatari ee la xiriiray arrimaha siyaasadda iyo in xukunka lagu raadiyo qore caaradiis. sidaasi oo ay tahay, hannaanka siyaasadeed iyo horumarinteedu waxay qaadanaysaa waqti, waxayna u baahan tahay dadaal, wadatashi iyo wadaxaajoodyo ku salaysan danta guud iyo midnimada. ugu dambayn, waxaan adkaynayaa in aynu midayno dadaalada ku qotoma qadiyadaha dalalkeenna, innaga oo iskaashanayna, wada tashanayna, isna taakulaynayna. alla waxaan ka rajaynayaa inuuna waafajiyo wixii khayr ah, naguna garab istaago sida aynu uga saari lahayn dhibaatooyinka ay la nool yihiin shucuubaheenna carbeed si ay u gaaraan horumar ballaaran, xasilooni iyo barwaaqo. waxaan u mahad celinayaa madaxda meertadan iyo xogayaha ururka jaamacadda carabta iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha kulankan muhiimka ah. ودمتم في عون الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودمتم في عون الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.